السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحكسو دواتان سومتك أكاديمي مقال كان وحكساب سيهي ومحي تايم فريمك وفي عن تريدينك مركا كسو دواتا مقال كان isku soo laabasho wanaagsan horta intaan ku hormarin su'aalaha inta toos u jawaabin time frame-ka ugu fiican waxay ku xiran tahay hadba adiga nooca trader-ka aad tahay ay ku xiran tahay tusaale ahaan haddii aad tahay scalper waxa ku wanaagsan inaad ku trade gareysid lower time frame-ka sida 1 hour-ka 30 minute-ka 15 minute-ka 5 minute-ka haddii aad tahay day trader-na waxa ku wanaagsan 4 hour-ka iyo weekly-ga in aad ku trade gareysid wixii 1 hour ka sareeya tusaale ahaan 2 hour 3 hour 4 hour ilaa iyo daily time frame-ka inaad ku trade gareysid ayaa habboon haddii aad tahay day trader. haddii aad tahay swing trader waxa ku wanaagsan inaad ku trade gareysid higher time frame-ka sida daily time frame-ka iyo monthly time frame-ka sababtoo ah waxay ku xiran tahay hadba trade-kaasi inta arjeenaysid trade-kaasi inaad ku sii jirto haddii aad trade-kaasi ku jirayso short term muddo gaaban marka waxa ku wanaagsan inaad lower time frame-ka aad isticmaashid haddii aad suuqa muddo dheer rabto inaad ku sii jirtid ama lacagta muddo dheer ku sii jirtidna waxa ku wanaagsan higher time frame-ka ayaa aad ku wanaagsan hadba waxay ku xiran tahay time frame-ka nooca trader-ka aad tahay waxaa jira saddex nooc oo traders-ka ah mid waxaa la dhahaa scalper day trader iyo swing trader saddexdaas nooc ay u kala baxaan marka saddexdaas ay ku xiran tahay